iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay ay soo badanaysay wadayaasha weji ku macaashka ay xukuumadda Soomaaliland soo abuuleysay si ay u taageeraan musharaxnimada madaxweyne Silaanya ee 5 sano ee soo socda taasi oo khilaaf badan dhalisay kadib markii gudoomiyaha xisbigaasi uu shaaca ka qaaday uu sharaxan yahay musharaxa tigada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye dhaxdiisa waxaana maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan Hotel Mansour isugu yimid odayaal ka mid ah odayaashaasi muddooyinkii ugu dambeysay ee xukuumadda Soomaaliland soo qabanqaabinaysay oo ka soo jeeda beesha degta waqooyiga iyo galbeedka magaalada Hargeysa kuwaas oo qorshoodu ahaa in taageero mug loo muujiyaan musharaxnimada madaxweyne Silaanya ayaa wax halba aad lagu lisay ka dhigay dhalinyaro ka soo jeeda isla beeshaasi ay odayaashaasi ka soo jeedaan kuwaas oo gudaha Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ka carqaladay hadalkaasi ay ku ballansaneen odayaashu idoo halkaasina uu ku dhaxmaray qacanka hadal qaar ka mid ah salaadiinta halka odayaasha qaar ka midana ay iska baxeen iyagoo aan wax hadal oran dhalinyartaasi iyadoo jawgu markii la isbedelay kadib markii odayaashu isku dayeen inay warbaahinta la hadlaan jawgina waxa uu dhacay sida tan حافظة صوري بلفتك يا اسمع يواش تجي هذا خواني انا مقوى كتاب الولد